Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada cashar kale cusub aan ku baran doono erayo ku saabsan ilkaha vocabularies about teeth. Erayo ku saabsan ilkaha. Tooth waa hal ilig, teeth-na waa ilko. Tooth ereygii ahaa tooth oo halka ilig markuu jamac noqonayo wuxuu noqdaa teeth. Marka saas ula soco. Baby tooth waxaa la dhahaa ilkaha markii aa yar tahay kuu soo baxa ayaa la dhahaa, ama milky tooth waxaa la dhahaa ilkaha markii aa yar tahay kuu soo baxa oo kaa dhacanaya. Kuwaas ayaa la dhahaa baby tooth, milky tooth. Ilkaha oo markaa yar tahay kuu soo baxo ayaa la dhahaa. Marka tooth waa hal ilig, teeth waa ilko. Baby teeth ayaa dhihi kartaa markaad dhehaysid ilkaha oo markaa yaraa ii soo baxay. Milky tooth ama milky teeth waa dhihi kartaa ilkaha markii aan yaraa ii soo baxay. Baby tooth iyo milky tooth waa isku macno, waa ilkaha markii aa yar tahay kuu soo baxo. Aan ka gudubno central incisors. Central incisors waxaa la dhahaa foolasha dhexda ku jira. 4 fool ayuu qof kasta leeyahay. Afka qaybta hoose 4 fool. Foolasha 4 ayuu ku leeyahay, korna wuxuu ku leeyahay 4. Marka labada geesaha jirta ma aha, labada dhexe ayaa la dhahaa foolasha central incisors. Lateralna waxaa la dhahaa lateral incisorsna waxaa la dhahaa kuwa oo geesaha jira oo micida ay ku xigto. Micida kuwa ku xiga ayaa la dhahaa lateral incisors. Foolasha qofba sida u yaqaano foolasha ama fool. Marka lateral incisors waa miciyaha ilkaha foolasha ku xiga kuwa geeska jira ayaa la dhahaa lateral ama lateral incisors. Central incisorsna waxaa la dhahaa kuwa dhexda ku jira. Labada dhexda ku jirta waxaa la dhahaa central incisors. Kuwa geesaha ka jirana waxaa la dhahaa lateral incisors. Foolasha geesaha jira iyo central incisors foolasha dhexda ku jira. Canine waxaa la dhahaa miciyada ama cuspid. Canine waxaa la dhahaa miciyada, cuspidna waxaa la dhahaa miciyada. First premolar waxaa la dhahaa micida gooska ugu soo horeeya ee ku xiga ayaa la dhahaa kan ugu horeeya. Gooska ugu horeeya ayaa la dhahaa first premolar. Goosa yaryar ah waaye oo aad u waaweyn. Kuwa waaweyn ayaa ka dambeyn doona, waan baran doonaa kuwaasna waxa lagu dhaho first premolar. Second premolar gooskaas yarka oo micida kuwa ku xiga ah kan kusii xiga ayaa la dhahaa second premolar. Second premolar ayaa la dhahaa kan kusii xiga. Marka aan ku celiyo central incisors waxaa la dhahaa dhoolasha dhexda ku jira. Lateral incisorsna waxaa la dhahaa dhoolasha geesaha jira. Canine ama cuspid waxaa la dhahaa miciyada. First premolar goosaha ugu soo horeeya ee yaryarka ayaa la dhahaa first iyo second ayaa la kala dhahaa. First kan ugu horeeya waaye, secondna waa kan ku xiga. First goosaha kan ugu horeeya, secondna premolar waxaa la dhahaa gooska yarka ee kan ugu horeeya kan ku xiga ayaa la dhahaa. Aan ka gudubno first molar. First molar waxaa la dhahaa gooska weyn ee labadii yaryareed ugu soo horeysa ku xiga. Second molarna waxaa la dhahaa kaas weyn oo labadii yareed ku xigay kan kusii xiga ayaa la dhahaa second molar ayaa la dhahaa. Wisdom tooth waxaa la dhahaa goos akhriyeed. Wisdom tooth waxaa la dhahaa goos akhriyeed. Artificial teeth waxaa la dhahaa ilkaha oo artificialka ah oo fake ah. Markii ilkaha aad duqoodid ee ilkaha dhan kaa daataan waxaa la siiyaa qof kasto ama oo gashadaa kuwa fake ah. Kuwa fake ah ayaa waxaa la dhahaa artificial teeth. Waxaa ka erey kalena waa loo isticmaalaa oo la dhaho denture ama false teeth. False teeth haddaad dhahdid ama artificial teeth haddaad dhahdid ama denture kulligood waa isku wada mid. Waxaa la dhahaa ilkaha
artificialka ah ama ilkaha fake ah ayaa la dhahaa ee qofka gashto. Gap tooth waxaa la dhahaa qofka markuu ilkihiisa ay kala baxbaxsan yihiin ee ilkihiisa isku xiriirsaneen ee waxa u dhexeeya wax yar isbeesyo u dhexeeya ayaa la dhahaa. Isbeesyadaas u dhexeeya ayaa la dhahaa gap tooth. Qofka leh ilkihiisa markay kala baxbaxsan yihiin ee wax yar u dhexeeya fanaxda kuwa leh. Qofka leh fanaxda kuwa leh gap tooth ayaa la dhahaa. Qofka oo fanaxda camal u dhexeysa ay kala feer yihiin ilkihiisa, kuwaas ayaa waxaa la dhahaa gap tooth. Marka waxaa loo xiraa biro ayaa loo xiraa kadibna way isku imaadaan ilkihiisa way isku taxmaan. Marka gap tooth waxaa la dhahaa kuwaas ayaa la dhahaa ilkaha markay kala baxbaxsan yihiin oo u dhexeeya space u dhexeeya ayaa la dhahaa. Marka aan ku celiyo, first molar waxaa la dhahaa gooska weyn ee kuwii yaryaraa ku xigay goosihii oo first premolar iyo second premolar, labadaas goos yaryarka micida keenaan waxaa ku xiga laba yaryar ah iyo laba waaweyn ah. Marka first molar waxaa la dhahaa kan weyn, gooska ugu horeeya oo weyn. Second molar waxaa la dhahaa gooska labaad ee weyn. Wisdom tooth waxaa la dhahaa goos aqliyeed. Artificial teeth waxaa la dhahaa ilkaha fake ah. Denture waxaa la dhahaa ilkaha fake ah, sidoo kale ayagana waa isku macno. Gap tooth waxaa la dhahaa qofka ilkihiisa kala baxbaxsan yihiin oo u dhexeeya isbeesyo oo ilkihiisa feer yihiin ama fanax inuu ilkihiisa u dhexeysa loo maleeyo ayaa la dhahaa gap tooth. Marka cashirkii ku saabsanaa ilkaha inta ayaa kusoo gabagabayn doonaa. Intaan ku kulmi doonaa cashir midkaan lamid ah waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.